bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh daawadayaal amaba dhegaystayaal meel kasta aad joogtaanba ku soo dhowaada waraysi gaar oo aan la yeelan doono suldaan cabdiraxiin saxardiid oo ka mid a salaadiinta somalilan kaasi oo haatan ku sugan dalka kanada waraysigeennan suldaanka waxaynu wax kaga weydiin doonaa arrimo khuseeya dhanka nabadgelyada iyo weliba xaaladihii ugu dambeeyey ee somalilan suldaan marka hore kusoo dhowow shabakadda Hadhwanaag News. waan ku dhowahay suldaan waxaad joogtaa kanada bal xaaladaha dalkii waxyaabaha aad kala socoto madax dhaqameed ahaan maxaad ku qiyaasi lahayd ama odhan lahayd? bismillaahi raxmaani raxiim alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaah sala allahu calayhi wasalam. marka hore waxaan salaamayaa shabakadda iyo daadiyaha maanta halkan waraysiga daadihinaya iyo dhammaan shaqaalaha Hadhwanaag News. waxaan leeyahay waad mahadsantihiin waana salaamantihiin. mar labaad waxaan u mahadnaqayaa ilaahay ina kulmiyey, waxaan u mahadnaqayaa idinka oo fududeeyay hawshaas. waxaan ka salaamayaa dhammaan shacabka reer Soomaaliland meel kasta joogaanba anigoo fursadda ka faa'iideysanaya maanta aad dhisiiseen. waxaan marka hore doonaya inaan halkan ka tacsiyadeeyo laba caaqil oo ka baxay reerkaan suldaanka u ahay, waa caaqil Buraale iyo caaqil Cismaan oo leeyahay ilaahay samariyi baan naga siiyo ehelkoog iyo qaraabadoodii halay ka baxeen wax khayr qabahay noogu bedelo ayagana insha Allah jannada firdawsa wala ala ilaahay ka waraabiyo. intaa waxay dheer waxaan ayagana si gaar ah u tacsiidanaya dadkii ku aafoobay roobkii duufaanada ahaa ee ka daayay Hargeysa ama gobolka Murujeex. ayagana waxaan leeyahay intii dhimatay ilaahay samariyi baan naga siiyo, inta dhaawacana ilaahay noo kiciyo, wixii khasaare dhacayna insha Allah waa ka soo kabdoona. markaan u soo noqdo su'aashaan weydiisay iminka dalkan waxa ka sokeeyay muddo 4 bilood ku dhawaada. dalka horta guud ahaan waa nabad, nimco badan waa daaday, kullay hawl adduun lagama waayo. wuxuugaha sooray waa jiraa oo maartay kacdooni waa jiraayo hadday noqoto xagga siyaasadda ah oo baryahan hadalladu ay ahaayeen hadallo kulul oo niman badan madax dhaqameed isku wadaarsadeen. laakiin guud ahaan dalka waa nabad alxamdulilah rabbil caalamiin. ilaahay waa inagu nimceeyey dal iyo deegaanna nimcada ilaahay noo shubayo. dalku waa barwaaqo. halkan aan jooga laftigeega oo kanadaana waa lagu nabad qabaa, jahilid joogtana ku nabad qabtaa, annaguna waan ku nabad qabnaa alxamdulilah rabbil caalamiin. suldaan aad ba umahadsan tahay. waxyaabaha aadka loo hadalhayay maalmihii ugu dambeeyey somalilan waxaa ka mid ahaa jabhadda korneel caare oo dhowaan sheegtay inay ka gadoodeen amaba diidan yihiin dulmi ay sheegeen in ciidanka dhexdiisa uu ka jiro. arrintaasi iyo arrimaha ka jira celaf weyn waxaa tahay qof si weyn ula socday, waxaana jiray in xilligii nabadeynta aad ka mid ahayd dadkii xilligaasi celaf weyn joogay si ay nabadda u soo xidhaan. arrimahaasi maxaad ka odhan lahayd? bismillahi raxmaan raxiim. horta arrimaha intii ilaahay noo suuro geliyaba horta ka qabanay. anigu waxaan ka mid ahaa ergooyinkii tegay halkaa waxaanu ku tegnaa horta marka hore dadku badanka way yar deel maartay ka gudbaan. halkaa anagu waxaanu ku tegnaa downline beesha qarxajis guddideedii maraysay. halkaa waxaanu ku tegnay waxay ahayd inaynu noqono xidhayaan oo wixii ay xukunto guddidii madaxweynuhu magacaabay ee qaran aanu liqsiino beeshayadii annaka nala dhalatay ee Sacad Yunis oo meesha xidhaanu tegnay garnaqsi baanu tegnay. waxa u garnaqaayay amba arrinta sulux ku dhameeyay waa guddidii uu madaxweynuhu qaran magacaabay. halkaa wixii ka soo baxay waanu liqsiinay Sacad Yunis, waanu qaadanay annagoo beesha qarxajis guddideedii waanu qaadanay oo xidhayaashiya magihii waanu kala qaadnay. alxamdulilah waa nagu guuleeyay. laakiin waxbaa ka soo noqday. arrinta markay wax ka soo noqdaanna amba waxbaa ku dheeraada amba waxbaa ka dhiman. arrintaasi way rafatay jabhadda General Caare amba Korneel Caare waxay ka baxday dhibtii halkaa ka dhacday, isagoo waliba u sibir saarayay in halkaas ay ka jirto cadaalad darro xagga ciidanka iyo nabadgelyada. si kastaba ahaato ninkaasi dibaddu ku maqnaa, wuxuu ku maraa dalka dariska nahay ee Puntland. maanta wuxuu joogaa dalka, wuxuu soo galay buurta Daalo. arrintaa waxaa gacanta ku haya odayaal qarxajisa oo nabadda dhexdhexaadinayay. madaxweynuhuna ergada u dhaxaysay jabhadda Caare iyo dowladda ah ergada waxaa hogaaminayay oo qayb ka ahaa guddiga qarxajis. waxaa ku jiray salaadiin rugcadaaya ku jiray arrintan wax ka ogaa. arrintaasi gacanta waxaa ku haya madax dhaqameedka qarxajis oo ka ahaa maxay ahayd garwadeed. arrintaana shalaftii waxaa ka soo noqday. waxaa jiray hadallo ka soo baxay amba hadal ka soo baxay jaranka ciidamada qaranka oo arrintaa dab iyo kabriid ku qabtay, soore ku shiday, dadkuna aad u dhibsadeen. oo Soomaaliya tirada marka dee xaajo lagu jiro
waxa wanaagsan inta xaajaadka dhan u dhacayso in hadallada dhalin kara in dadku ku kala fogaadaan aan hawada la isku marin haddii aanan jirtay iyo haddii dhibi jirtay waxa ahayd ragga gogasha fadhiya ku wada hadlaanay inuu jaranku hawsha si kale u maareeyo laakiin arrinta jaranku waxay arrin ku deelqaafa amba ku laf jaba ku ah arrintii nabadaynta ee guddiga ergada beelaha qarxajiis ay gacanta ku hayeen wixii ka dhacayna waad ogtahay hadallo badan baa ka soo baxay guddigii iyo odaygii garwadeenka ahaa Suldaan Maxamed Suldaan Xirsi Qari arrinta ka garan waa kii ka hadlay waa tii arrintaasi ay keentay maxay ahaydeen khilaaf badan iminkana insha Allah Soomaaliya gacanta oo meel cilmiga shalamo dhuftay waa la dhiraandhiriyaa kulli xaajadaasi wali way taagan tahay xalkeegina wali waa u taagan yahay qaranka madaxweynahana marti looga yahay oo looga fadhiyaa hawsha sidii uu ku xalin lahaa guddigii dhexdhexaadinta ahayd ee ergada ahaydna halkiibay wali u fadhidaayo gogoshiibay ku fadhiyaan waxay wali ku sugayaan ceerigaabo arrinta caarana waxay u baahantay in lagu xaliyo caqliye uma baahna in lagu xaliyo cudud haddaanu soo noqdo arrinta ceerafoy ee inta badan rafatay ee inta badan ragaadi anigu ray ahaan waxaa leeyahay dad markay isqabtaan aba arrin uu dhaco midna waa ugub midna waxa weeye waa curad arrintan horta arrin ugu waa curad weligeed buu dhici jirtay beeluhu way isqaban jireen dadku way istiri jireen daaqiyo biyaa la isku qaban jiray laakiin waxaa la dawo laakiin xaaladu markii ay soo galeen siyaasadda ay wixii soo galeen in la maxay ahaydeen la dhaqan la siyaasadayo wax badan baa xumaaday marka waxaan leeyahay arrintaa maanta ceelafoynta taala ooda dhacday sidoo kala sarreeyaan baa loo guraa halkeegu waxa weeyaan in marka hore arrinta caare iyo jabhadda la xaliyo marka la xaliyana labada beelood ee dhibtu ka jirto si waadix ah ay u ganacsadaan cid u dhaxa oo u garqaadana la helo oo ka daacada kadibna kii khaldan dhabarka loo saaro khaladkiisa halkaan lagu bogsiiyo sidaasna xaajadaas loo guto Suldaan arrinta cilaf weyn maadaama dadkii hore uga qayb galay ergooyinkaas ama sidii loo nabadayn lahaa aad ka mid ahayd waxyaabaha keenay in xilligaas arrinta caare aan la soo gelin maadaama arrimo ay khuseeyeen maxaad ku sameyn kartaa horta arrintaas waxay arrin seegtay bay ahayd maxay ahaydeen cid kastoo ka talisaba annagu markaan halkaa joognay qoladii rayga aaminsaneed bay ahayd war arrintu waa asal iyo farace aanu isku tumbuqtaamino arrintaan wadagal oo ha la isku wadareeyo kol haddii arrinta reer loo galayo caarana qayb buu ka yahay waxaa halkan ka qarxay ninka arrin ciidan kama tegin wuxuu ka tegay arrin nabadgeliyo oo wuxuu ka tegay in ciidanka qaranka amba ciidanka halkaa joogay aanu daacad ka ahayn arrinta nabadaynta ceelafay oo dhan la saftay isaguna wuxuu la saftay qaybtii kale maadaama saa tahay in arrintii midayno oo dhammaynaynu ku talagalnay laakiin de waxaa jiray niman naga ray abduwanaa nagana adde markaa gacanta awoodda ku hayo dib kulba midida daab gacanta ugu jirtaay ay gacanta ugu jirta dabka madaxweyne kow ka ahaa oo yidhi arrintaasi waxaan ku xalinaynaa arrin military rag la qaatay oo fara badanna waa jireen taasaa keentay dabafurka iyo dabafilqanka keentay iyo keentay in arrinta caare meel ku degamsanaato markii dambena dee faraha dhexdoodu ka baxay caare waa kiis ka tallaabay lagama daba tegin iminkana waxaa arrinta loogu jiraa soo noqodku soo noqdo baa arrintan loo galay hadduu maqnaan lahaa arrintaasi mar kasta waxay wax laalan waxayna ka mid ahayd dabka hurinaya colaadaha ceelafweyn arrintaasoo xal loo helana mooyaane arrinta ceelafweyn way jiitamaysaa way daba dheeraanaysaa waa la kala shikeeyaa dadkan beelahana maaha beelo kala fog waa beelo wada dhashay waxba uma kala qarsoona cid kastaba guriga cid kale u joogta waa dad tola oo isdhex jooga oo isdhex degan marka xantaa la kala helaya waa la iska warhayaa arrintaasi waxay ku tahay dhib nabadda ceelafweyn taasoo la xaliyo mooyaane arrinta ceelafweyn waxay noqonaysaa arrin dareen iyo shiki dhibteeduna sii socda Suldaan taliyaha ciidanka qaranka ee Soomaaliland Nuux Taani maruu dhawaan warbaahinta la hadlayay waxyaabaha uu sheegay waxa ka mid ahaa in caaro uu yahay dambiile sidoo kale waxa uu sheegay in ciidamadii dhawaan u goostay Puntland amaba ku biiray Puntland inay haayeen kuwa iska qaadan jiray mushaharka oo kaliya balse aan Soomaaliland dhab ka ahayn ama Soomaaliland ahaanshahoodu in arrimahaas aad u aragtay iyaga horta arrimaha Nuux Taani aad baa looga hadlo horta waa lagu raftay ummaddu aad bay uga hadasho way dhaliishay ummaddu madax iyo midjabo waa laga hadlaa arrintaasoo meel baa la iska taagay anigu rayahaan waxaan aaminsanay horta wax kastaba ha qabo qaranku amba jananku ha qabee ma ahayn eri saxaafadda la isku mariyo ma ahayn eri nin janana oo darajadaa leh haddayba jirta laftigeedu inuu waadixiyo oo uu laska soo taago mambar uu yidhaahdo sidaasaa jirta Soomaalida tala xaajada badbaa la dadaa oo huga la saaraa arrimahan waxay ahayd arrimihii fadhiga lagaga hadlayay laakiin arrintaa maxay ahaydeen jananku sheegay dab bay hurisay karashiki bay keentay
qarannimadeennii laftigeega wax u dhintay dadkiiba macal inay kala aamin baxaan ay dhici gaadhay marka arrintaas waxay ahayd arrin qaranka ku ah dhiigbaxa suldaan intaynaan ka bixin arrimahaasi maxaad xalka u aragtaa is leedahay arrimahan waa lagu xallin karaa si somalilan ay usii ahaato somalilanteedii dimuqraadiyaddii iyo nidaamkii inta badan lasoo dhisayna uu sii horumaro horta somaliland waxaa leeyahay horta somaliland nabadeedu waa lama taabtaan weeyaan nabadda somaliland marka hore gacan baa lagu hayay gacanna waa lagu camalsanayo waa lagu shaqaysay maanta markii dareenkaas yimid horta nabadda somaliland labada gacmood baa la isugu geeyay xalkeeguna wuxuu yahay dalku hoggaan buu leeyahay madaxweyne uu leeyahay golo baarlamaan iyo golo guurti buu leeyahay wuxuu leeyahay siyaasiyiin abqariyiina anu waxaan leeyahay tanaasulka koobaad waa inuu madaxweynaha ka yimaadaa uu madaxweynuhu tanaasulka koobaad keena soomaalida waxaa tirahdaa geel hal duqaa loo tumaa maanta madaxweynaha looga fadhiyaa inuu ka tanaasulo wax fara badan dabacsanaado u dhibirsanaado ummadda halkaas waxaa halka somaliland ku jira inta maanta kacsan ee taxtabanaysa iyo inta maxay tabaalaysan inta maxay isaga raacsan inta suldaa wuxuu yahay maxay madaxweyne inuu labada gacmood boo fidiyo waliba wax tabanaya qodoyga wax tabanaya ee sooruhu ku taagan yahay waliba dee wax la taaban kara ka tabanaya alindana mar wuxuu ka tawdaa wax malaawaala marna wax la taaban karo walis wada ognahay waxa la madaxweynaha sulux xalka koobaad wax weeyaan madaxweynaha oo dadka u dhibirsanaada soo dhaweeya talada iyo tusaalaha la siina qaata uu kuna caloodeega in uu wax badan liqo oo ilka dhig baa leeyahay barna waa la tafaa barna waa la liqaa maanta madaxweynaha looga baahan inuu tanaasulaad doon sameeyo suldaan haddii aynu intaa kaga baxno arrimaha celaf weyn iyo korneel caare waxaad hadda joogtaa dalka Canada bal qurba joogta Somaliland ee dalkaasi joogta ama dalalka kale ee Yurub joogta iyo kaalinta ay kaga aadan yihiin horumarka dalka sidee baad iyaga u aragtaa horta mujtamaca qurba joogta anigu in badan qurbaha la joogay amba wuxuu gaal ahaa qurbaha wax badan baa iska bedelay barigoora qurbuhu dhibta qabyaalad way ku yareed dhibta kala gurka beelaha Somaliland tafaraaruqa arrimaha soo dhab waxay arrimo ku yar laakiin sidii aanu galay doorashooyinka u galay 2017 u galay qurbaha waxa yimid oo ku soo ifbaxay oo dadku dareemaya oo ninka soo caag la dareemaya inay dadku noqdeen beela qaybsan iyo ummad qaybsan oo waliba dhibta ay dhexdooda maanta ay qabaan aanay hay Somaliland badankeega oo mujtamaca reer Somaliland waa mujtamac gabarrata waa ummad shaqaysata waa ummad bariiska la dagaalantay iyo baahidooda gaarka aanay dhibaatada Somaliland oo ilaa ka xumooysa halka waxa mooysaa inay taalo dagaal ehliya laba oo aan ku daadan marka qurba joogta waxa dhex yaala dagaal sokeey aanay dhigna ku daadanee afxuma iyo maxay ahaydeen ariida la qaafayo inay maartay huriyaan kolba wixii ka soo kordha dalka marka waxa la qurba joogta marka hore waxaan ilaga fadhiyay oo awal bani liga maartay bartayna horumarka ka shaqeysaan oo ka shaqeysaan isku xirka ummadda oo ka shaqeysaan tanaasulka laakiin bariyaha farba ku guda qurba joogta anigu waxaan u bixiyay qurba joogta dhexdooda waxa ka dhacay dagaalka sokeeye ee qurba joogta ka dhacay ee aan dhiig ku daadan aad iyo aad baad u mahadsan tahay kaasi waxa uu ahaa suldaan cabdiraxiin saxardiid oo ku magac dheer suldaan saxardiid oo ka mid ah salaadiinta Somaliland isla markaana haatan ku sugan dalka Canada oo aanu khadka telefoonka kula xiriirnay suldaan aad iyo aad baad ugu mahadsan tahay waraysigaaga idinka mudan wala mahadsantii dhammaan waan salaamayaa shacabka reer Somaliland waxaan rajaynayaa duco waxaan rajaynayaa khayr iyo barwaaqo iyo horumar waxaan rajaynayaa nabaddu inay intaas laga soo dhawaado la adkeeyo waxaan leeyahay gacalan kala maarmay beernay meel kala tagi mayno marka waxa la noo dhaxlaaqayo wa salaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh